gudoomiyaha degmada Cagaag Axmed Ciise Caawil oo kaashanaya ciidamada bilayska degmadaasi ayaa howlgal ku fuliyay meel degmada Cagaag u jirta 6 kiiloomitir dhanka koonfureed halkaas oo xiro ka sameysteen maleeshiyada dhalinyaro ah oo waday xaalad nabad ciidamada bilayska iyo maamulka degmada Cagaag ayaa gabi ahaanba baabiyay rugti ay sameysteen maleeshiyadkaasi ugu horeyntiina waxa ka warbixiyay howlgalka ay maanta fuliyeen gudoomiyaha degmada Cagaag Axmed Ciise Caawil iyo taliyaha bilayska degmadaasi Sulub Gaas Gutaale waxaa la saddex marayay muddo dhowr iyo 10 casha Somaliland gudaheeda inay goobtan ay noqotay goob ammaan darro waxaan ku sugannahay saaka annagoo ka tirsan golaha deegaanka uqaasha ciidamada booliska dhammaantayo waxaan ku sugannahay goobta waxaa degay niman dhalinyaro oo reer Cagaaga waxaan u aragnay ama Somaliland u aragtay ama anagu aan u aragnay inay ammaan darro keeni karto oo ay dabada ku hayso sida darteed waan iska qaban gacan biraan iska qaban annagoo cid kale anaga caaw reer Cagaagaan gudaheeda haddii tahay booliska haddii tahay golaha deegaanka haddii tahay uqaasha haddii tahay haweenka dhammaantayo waxaan iska midownay inaan iska qabanno fidnada soo socota sida darteed waa goob bannaan hadeer halkan waa meeshii raashin ku yaalay dadkan waa kuwii biyaha garwaa masaajidkii dhammaanteed bannaanta hadeer waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan reer Cagaag hadday tahay golaha deegaanka hadday tahay uqaasha hadday tahay booliska waxaan naga soo gaadhay dhaawac shaqaqa oo booliska soo gaadhay sambiri marka ciidamada Soomaaliland howlgelayaan dadka way u turaan marka hore saa darteed dibadda ku soo gaadhay marka dambana way iska caabiyaan cid kasta oo guulaysa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u celinayaa deegaanka reer Cagaag iyadoo gacan kale oo Soomaaliland ay soo gali waxa iska qabteen waxaan uga tulnay ciidamada Soomaaliland jidaasha iyo dhibaatada aan anaga dhaxaynaamka isku sameynay oo ku dhacda kharashka anagu aanu galnay iyaga ay gelaayeen gobol iyo degmo kala toona nagama caawin dhibaatada shaqaqada ah ee Soomaaliland iyo derisada inta kale ka dhawaatay inay soo food saarto sida darteed waxaan iska caabinay dhamaantayo wixii dhib ahaa waan u xalinay arinta kamaana dul qaadan waxaan xukuumadda u sheegayaa madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha saanada ciidamada waxaan u sheegayaa arinta kamaana dul qaadan haddaan nahay degmada Cagaag kamaana dul qaadan doono iyo wixii waaga kalaba oo halka aan taaganahay waa meeshii taliska laga dhigay ee raashinka iyo deegaanka loo sameeyay oo daas iyo waxaas aan qaadqaadayna wixii lagu oday bay ahayd waa wixii hore meesha hadaladii ka sii horeeyayna waad maqlayseen maxaan ku sheegay haddana waa inta iyadii ugu dambeysay halka kan ciidankii bilayska iyo ciidankii nabadgelyada ee magaalada iyo maayirkii iyo odayaashii iyo uqaashii ay wada taagan yihiin waa la baneeyay waa halka aan taaganahay geedka hoostiisa ee xaraarinta hadii maqlaysay deegaanka la hawgaato waa la baabiyay in la baabiyay oo aan xero dambana laga dhigi doonin tii horena tii hadda la qoonsadayna la baabiyay ee afarta weel lagu arkay waa taas gacantayadaan ku baabiinay dhanka kale waxgaradka deegaanka ayaa soo dhaweeyay howlgalkan ayagoona u mahad celiyay maayirka degmada Cagaag iyo booliska degmadaasi haddaan odayaalahay haddaan boolisnahay haddaan waxgaradnahay si macnalo oo asiibaysan oo qiimo badan baan ku dhamaynay almuhiim waxa weeye amnigu sugan yahay hadday qaadahayna arinta waa la qabtay hadday saxaydna waa la qabtay meel baa lagu ogaaday waa degugnay mana soo noqon doonto toosh buu ku haystaa oo ku ifinaya arinta waxaan u sheegaynaa dhammaan hay'adaha qusayso iyo dirisyada iyo maamulada dhammaan waxaan u sheegaynaa arinta inay saa ku dhamaatay wax ka soo noqon karaan uu jirin total ugu dambeyntiina degmada Cagaag oo ah degmooyinka ugu waaweyn bariga Somaliland ayaa ah deegaan ku caan ah ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida Liban qaran wararka telefishinka Somali News la socod